kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalkeena udub Somali TV qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona militariga Somaliland oo madaafiic la dhacay jiid hore ee dagaalka Sanaag waxaan kale oo warkeena idinkugu soo gudbin doonaa hadii waqtiga noo saamaxo daawadayaal ciidamo fara badan oo dawladda Soomaaliya ay ka dejisay gobolka Gado Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo colaad xoogan ka dhax bilaabay mucaaradka madasha samata bixinta waxaan kale oo warkeena idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal xaaladda guud ee Jubbaland xaaladda guud ee waqooyi bari Soomaaliya iyo tan Puntland wararkaasi warar kale oo xiiso badan ayaa daawadayaal warka janaalkeena udub Somali TV ku daawan doontaan daawada hadii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka like iyo share iyo comment waa dhankiina aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya ee warkeena kooxda madasha mucaaradka samata bixinta ayaa mar kale waxaa ka dhex qarxay dagaal aad u xoogan saacadihii la soo dhaafay waxaana wararka ugu dambeeya aan helayna ay sheegayaan in mucaaradka banaanbaxoodii markii uu baaqday kadib laba qayb ay u kala baxeen banaanbixii mucaaradka ee maanta lagu waday in uu ka dhaco magaalada Muqdisho ayaa dib loo dhigay kulan ay yeesheen xubno ka socda dawladda federaalka Soomaaliya madasha mucaaradka iyo guddiga dhexdhexaadinta ayaa lagu heshiiyay in dib loo dhigo banaanbaxa markii labaad iyadoona horey loo baajiyay banaanbaxa kan ka horeeyay dhinacyada ayaa ku heshiiyay in la magacaabo guddi ka kooban 4 xubnood oo si wadajir ah ugu shaqeynayo habsami u qabsoomidda iyo sidoo kale goobta lagu qabanayo sidoo kale waxaa kulankani lagu gaaray in uu magaalada lagu dhaxwadan karin hub waaweyn halka gaadiidka cabdibilayaasha ee wataan xubnaha mucaaradka la diiwaan gelin doono dawladda waxay kulankan ku matalay taliyayaasha booliska iyo sidoo kale NISA halka madasha ay ka socdeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Xasan Cali Khayre guddiga dhexdhexaadinta waxaa ka socda xildhibaano iyo sidoo kale iyo ugaas dhigay iyo sidoo kale senator Dhegdheer iyo xildhibaan Saabir Shuuriye horey dadaaladani ayay u hogaaminayay imaamka iyo ugaaska Mudulood iyo guddi xildhibaanaha beelaha Hawiye ayaana horseeday in is-afgarad lagu gaaro isla markaana go'aankii horey looga noqday madasha samata bixintuna ay ka laabatay go'aankaasi laakiin wixii markaasi ka dambeeyay go'aanka lagu baajiyay maanta Khamiiseed banaanbaxa kooxda madasha samata bixinta waxaa si weyn uga carooday Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay inuusan gibi ahaanba uusan ku qanacsaneyn go'aanka la gaaray isla markaana uu si weyn u cambaareynayo wararka sidoo kale waxay sheegayaan in Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu sheegay in Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ay heshiis qaldan ay u qaadeen dawladda federaalka Soomaaliya ay rabto inay mar waliba ay baajiso heshiisyadooda tanna waxay ka dhigan tahay culayska siyaasadeed ee hadda jiro in uu mar kale cirka isku sii shareeri karo xaaladaha hadda soo kordhay ayaana u muuqanaya in maalinba maalinta ka dambaysa dhibaato xoogan kooxda madasha samata bixintu ay dhaxda ay ka galayso kooxda madasha samata bixinta ayaa waxa ay u arkaan baaqashada banaanbaxooda in uu noqon karo mid saameyn xoogan yeelan karo inkastoo kooxdan ololahooda maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen hase ahaatee Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa durbaba waxaa ka dhex dhashay khilaaf aad u xoogan khilaafkan ayaana noqonaya mid hadalhayn xoogan dhalinaya dadka falanqeeya siyaasadda ayaa waxay sheegeen in Sheekh Shariif Sheekh Axmed wajigiisa cara xoogan laga dheehan karay isagoona si cad kaga xumaaday go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku taageertay mucaaradka madasha samata bixinta qayb ka mid ah waxaana saacadihii la soo dhaafay Sheekh Shariif Sheekh Axmed xildhibaan Dahre Amiin Joosow ee xildhibaan Caananuug ay yeesheen kulamo isdaba joog ah waxaana kulamadaasi ay si weyn ay kaga hadleen sida door wanaagsan ay u qaadan lahaayeen isla markaana Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay ku tilmaameen shakhsiyaad aan lagu kalsoonaan karin wararka sidoo kale waxay sheegayaan in xaaladda siyaasadeed ee jirta ay noqon karto mid aad saameyn xoogan u yeelan karto iyadoo durbaba Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu doonayay iyadoo durbaba Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu u arko in lagu riixayo dhinaca Xasan Sheekh Maxamuud maadaama heeb ahaan ay isku heeb yihiin Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo habargidir ka soo jeeda iyo sidoo kale Xasan Cali Khayre oo murusada ka soo jeeda ay go'aan ka dhan ah Sheekh Shariif ay durbaba ay qaadanayaan waxay hore u sheegeen inaysan ku kalsoonaan karin Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaana tani u muuqanaysaa in culays siyaasadeed durbaba kooxda madasha samata bixinta uu ka dhex bilowday dhanka kale daawadayaal ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa laga dejiyay gobolka Gado saacadihii la soo dhaafay
wararka ugu dambeeya aan helayna ayaa waxay sheegayaan in ciidamo aad u fara badan dowladda dhexe ay ka dejisay gobolka Gado saacadihii la soo dhaafay. Magaalada Garbaharey ayaa mar kale martigelinaysa xaalad siyaasadeed oo aad u culus, iyadoo saacadihii aan ka soo gudubnay xiisaha hadda halkaasi ka jiro uu aad u sii kordhayso. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa yoolkeeda ugu weyn waxa uu yahay inay ka adkaato maamulka Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe. laakiin arrinkan ayaa u muuqanaya in culays xoogan uu dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku noqonayo, maadaama ciidamo aad u fara badan ay ka dejisay gobolka Gado, gaar ahaan magaalada Garbaharey. magaalada Garbaharey ayaa martigelin karta xiisad dagaal oo cusub. saacadihii la soo dhaafayna waxaa ka jiray halkaasi dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeday, iyadoo ciidanka Cabdirashiid Jalan ay hadda wadaan abaabul aad u xoogan oo ka dhan ah ciidamada maamulka Jubbaland. waxaa saacad kastaba ka dhici kara Jubbaland dagaal aad u xoogan oo dhex mari kara ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daacad u ah Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe. inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya yoolkeeda ugu weyn uu yahay inay Jubbaland cusub ay sameyso, haddana saacad kasta waxaa laga cabsi qabaa in dagaal foolka fool ah uu ka qarxo gobolka Gado. gobolka Gado ayaa markan miisaan culus martigelinaya. miisaankan ayaana noqonaya mid hadalhayn badan dhalinaya, iyadoo dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ay sheegeen in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud yoolkeeda ugu weyn uu yahay inay dhabar jibiso Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ee Jubbaland kale ay ka barbar dhisto. Jubbaland-tan laga barbar dhisayo Axmed Madoobe ayaa waxa ay dhalisay hadalhayn xoogan, iyadoo qaramada midowga Yurub iyo sidoo kale dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya ay si cad kaga soo horjeesteen go'aanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne xasan sheekh maxamuud go'aankiisa ayaa waxa uu hore u sheegay qaramada midoobay in uusan marnaba ka laaban doonin, isla markaana go'aankiisa uu noqonayo mid markasta kor u sii kici karo. dhinaca kale daawadayaal, wararka ugu dambeeya ee waqooyi bari Soomaaliya ka imaanayana waxay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay ciidamada Somaliland ay wadeen dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo ka dhan ah ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya. militariga Somaliland ayaa madaafiic la dhacay jiidaha dagaalka ee Sanaag. saacadihii la soo dhaafay waxaa la sheegayaa in Sanaag ay mar kale martigelinayso xiisad cusub oo ka dhex bilaabato maamulada Somaliland iyo waqooyi bari Soomaaliya. madaafiicdan ayaa durbab waxay dhalisay hadalhayn xoogan, iyadoona dadka ay si weyn baqdin xoogan ay u soo wajahday. magaalada Ceergaabana waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan. magaalada Ceergaabo ayaa hadda waxaa ka bilaabanaya kacdoonno waaweyn, iyadoona beelaha dega halkaasi ay durbaba ay isaga soo baxayaan, maadaama madaafiic Somaliland ay halkaasi ay ku garaacayso. jiidaha dagaalka Sanaag ayaa hadda waxay u muuqanayaan inay buux dhaafinayaan ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya. ciidamada maamulka waqooyi bari ayaa yoolkooda ugu weyn waxa uu yahay inay iska difaacaan ciidanka maamulka Somaliland. ciidamada maamulka Somaliland ayaa waxaa la sheegay in yoolkooda ugu weyn uu yahay inay ka adkaadaan maamulka sida weyn ay uga soo horjeedaan ee waqooyi bari Soomaaliya. inkastoo maamulka waqooyi bari tallaabo adag uu doonayo inuu qaado, tallaabadan ayaa waxaa la sheegay mid hadalhayn badan dhalisay. guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena Udub Somali TV saaxiibayaal waa naga inta daawade. haddii aad janaalkeena Udub Somali TV aad ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka, like, share, comment waa dhankiina. waa mahadsantihiin. amaana Allah.